Khaliif. Maanta waxaan sharxi doonaa maadada la yiraahdo Analysis of Structural Members ama loo yaqaano Structural Analysis ku caanka ah. Haddii aan ku bilowno waa maxay structure? Waxaan dhihi karnaa structure wuxuu ku leeyahay structure refers to a system of connected parts used to support load such as buildings, bridges, towers, etc. Structure-ku waa waxyaabo la isku xirxiray looguna talagalay inay celiyaan load ama culays sida dhismayaasha noocyadooda kala duwan, buundooyinka, iyo waliba dhismayaasha dhaadheer ama guryaha dhaadheer iyo wixii la mid ah. Haddii aan u imaano a typical structural engineering project amaba structural engineering project maraaxisha uu maro amaba inta qayb ee uu maro amaba inta meel ee uu maro markii la sameynayo, marka hore waxaa la sameeyaa planning amaba qorshe ayaa loo dejiyaa. qorshahaas kadibna waxaa la sameeyaa preliminary design, structural design amaba naqshad horudhac ah ayaa la sameeyaa. kadib naqshada horudhac marka la sameeyana waxaa la sameeyaa load estimation amaba culayski ayaa la qiyaasaa. Tusaale ahaan haddii waxaa la fiirinaa haddaan guri dhisayno, gurigaas waxaa la fiirinayaa ma xafiis yuu noqonayaa, ma maktabad buu noqonayaa, ma iskuul buu noqonayaa, ma wuxuu noqonayaa guri caadi dad ay degaan, ma wuxuu noqonayaa bakhaaro. mid kastana wuxuu leeyahay load ama culays u gaar ah oo loogu talagalay. markii load estimationkaas la sameeyo kadib waxaad u imaanaysaa structural analysis markaas ayaa la sameynayaa. markaas ayaa la falanqeynayaa structure-kanita load estimationka aan sameynay ma sax baa mise waa qalad. marka waxaa kaga soo baxaya meeshaas gurigaas inuu safety yahay, safetygiisa inay okay tahay, iyo serviceability-giisa labadaba inuu aamin yahay oo ammaan yahay gurigan lana isticmaal iyo in la isticmaali karo labadaba. haddii ay jawaabta su-aasha ma la isticmaali karaa guriga ammaanna ma yahay ee noqoto maya waxaad sameynaysaa dib waxaad ugu noqonaysaa load estimationka aad samaysay. haddii ay jawaabta noqotona markaas guriga dhismihiisii ayaa la bilaabaya. haddaba dhinacan waxaa ku qoran government, kadibna consultant ee la xiriiraysa, kadibna contractor. governmentiga amaba cidda guriga iska leh amaba cidda dhismaha iska leh, aanba ka soo qaadno tusaale ahaan buundo inaan dhisayn, buundadaasna dowladda ayaa rabta inay dhiso, dowladda maalgelinaysa. dowladda waxay la xiriiraysaa sharikaadka talada ka bixiyo dhismayaasha infrastructure-ka lagu magacaabo amaba kaabayaasha dhaqaalaha. kadib markay la tashato oo ay u sameeyaan naqshadeyn, kadib waxay la xiriiraysaa contractor amaba shirkadii dhisi lahayd buundadaas. sidaas ayaana lagu bilaabayaa. ayadana dadka ka mas-uulka amaba qolooyinka ka mas-uulka waa kuwan. waxaan u imaanaynaa hadda structural elementska. waxaan niri waa waxyaabo la isku xirxiray amaba la isku sameeyey structure-ka. marka waxyaabaha noocaas waxaa kow ka ah amaba ugu horeeya sidaad halkan ku arki kartaan beamska. beamka waxaa la yiraahdaa, haddii hal sawirkan aan fiirino, waa guri asaaskiisi waa kana, waa foundation, waa sawir 3D ah. kadibna tiir ayaa ka baxaya asaaskan. tiirkan waxaa ku sii xiran kuwan jiifo oo lagu magacaabo beams. marka beamka wuxuu leeyahay primary beam iyo secondary beam. primary beamka hadda sida halkan ka aragto kuwan cagaarka ah waa primary beam, oo waxaa ku sii xiran beamam kaleeto oo kuwan qaxwada camal ah oo ayagana lagu magacaabo secondary beam. kuwa qaxwada ina waxaa kor ka sii saaran slab. slab-kanita marka culayskiisa wuxuu ku dhacaa secondary beamska. kadib marka uu secondary beamska ku dhacana wuxuu usii gudbayaa maxaa la yiraahdaa secondary beamskana waxay usii gudbinayaan primary beamka. marka sawirkan ujeedada aan ka lehna anaga waa inaan beamka meesha uu kaga yaalo dhismaha aan baran. marka dhismaha beamka waxaa la yiraahdaa waxa isku xiro column-ka amaba tiirka iyo oo culayska kasoo gudbiyo slab-ka amaba waxa
beamka ka koreeya ama dabaqyada ka koreeya beamka. marka taa waa noocyada markii la fiiriyo. haddii aan fiirino noocyada beamka ee qaab dhismeedka hadba sida loo dhiso, waxaa ugu caansan kan koobaadna ah, qalin ayaan soo qaadanaya, waxaa ugu caansan ama ugu horeeyo simply supported beam. waan afeefanayaa horta, waxaan idin leeyahay ama waxaan ku leeyahay maadadan waxaa lagu qaataa sanadka saddexaad ee jaamacadda. marka waa inaad taqaano simply supported beam iyo cantilever beam iyo fixed beam iyo continuous beam. hadda si guud baan u sharxi, laakiin sharaxaadaas aan ka bixinayo haddii aad sanadka koowaad ee dugsiga jaamacadda aad dhiganayso, waxaa laga yaabaa inaysan micno badan kuu sameynin. laakiin haddii aad maadadan qaadanayso sanadka saddexaad jaamacaddana aad ku jirto, waxaan isleeyahay inay macno badan kuu sameyn doonto. marka qaab dhismeedka markii la fiiriyo beamka, kow waxaa ka ah simply supported beam. simply supported beam dhinac wuxuu ka yahay bin support, bin ayaa ka celinaya, dhinacna waxaa ka celinaya roller. marka beamka iyo rollerka farqiga u dhexeeya waxaa weeyaan, beamka waxa uu leeyahay axial force amaba force oo dhinaca y direction ah, xagga y-da ujeedo, iyo force ujeedo maxay dhinaca x axis-ta. xaggana sidoo kaleeto wuxuu leeyahay force celinayso dhinaca y axis-ka, kan waxaa la yihahdaa roller. rollerka marka wuxuu kaliya leeyahay force oo y axis ah bas, halka uu leeyahay binka x axis iyo y axis force labada dhinaca. marka simple support beam haddaad maqasho, inta saddexdan force ayuu leeyahay, dhinacan oo rollerka oo hal force ah iyo labada oo dhinacan binka ah. marka waa kana ugu caansan, inta badanna la isticmaalaa amaba masaa'ilka ama problemyada markii la xalinayo su-aalaha maadadan, kana ugu badan waxa la isticmaalo. waxaa kaleeto jiro asagana caan ah cantilever beam. marka cantilever beamka waxa uu leeyahay asaga dhinacaan horta wuxuu ka yahay free, wax support ama laha ama wax celinaya ma jiraan. xaggan laakiin wuxuu leeyahay force oo y axis ah, force oo x axis ah, iyo weliba moment, bending moment ayuu leeyahay. marka waxaa ku xigo asagana fixed supported beam. kan fixed supported beamka waxa weeyaan meesha cantilever beamka oo dhinaci kale freega ahaa un asagana fixed laga dhigay oo loo yeelay maxay force oo x direction ah, force oo y direction ah, iyo weliba maxay momentigi. dhinacaana sidoo kaleeto m baa jirto, waxaa kaloo jirto force oo x axis ah iyo force oo y axis ah. waxaa kaloo ku xigo continuous beam. beamka haddii uu leeyahay saddex support iyo wax ka badan, waxaa la yidhahdaa maxay continuous beam. macnaha waa beam ka gudbaayo, macnaha hadda kanoo kaleeto beam kanoo kaleeto haddaan fiirino buildingkan, waxa uu ka gudbayaa columnkan iyo columnkan. haddii aanba dhahno tusaale ahaan column kale ayaa halkan inoo saaran, waxay noqonaysaa taas wuuna sii socdaa beamki, waxay noqonaysaa waxaan ugu yeeraynaa kan continuous beam. elementiga labaad amaba waxa labaad ee ka mid ah structure-ka amaba khaasatan xagga dhismaha iyo xagga dhismayaasha guryaha iyo bridgeska, waxaa isagana jiro columnka oo aan iri hadda wax yar ka hor markii aan sharxaynay sawirkan. haddaan dib ugu laabano, columnka waa tiirka, waa kuwan taagan weeyaan. marka asaga wuxuu leeyahay axial force, inta badan momentigiisa saas looma keergarayo, laakiin momentigu leeyahay. ayagana waxaa jira types of structure, noocyada structure-ka ayagana waxaa ka mid ah trusseska kowka ah oo maadadanayt aan ku sharxi doono. trusska waa kan keliya wuxuu leeyahay isaga forces oo macnaha elementska meesha isaga imaadaan uu ka kooban yahay ayaa forces noqonayaan, culeysna uu qaadi karaa. oo hadda kan sawirkan dhinacaana haddaan fiirino waa bridge oo ka samaysan truss. marka trusskana waa la adeegsadaa isagana. trusska waxaa u maleynayaa amaba aan filayaa inuu yahay
sida ugu tusaalaha ugu fudud aan kusoo qaadan karo waxa weeyaan guryaha villalka marka la dhisaayo jiingada waxa celiyo maxal waxaa loo sameeyaa alwaaxyo isdhaafsan oo isku xirxiran markaasoo kaleeto waxaa la dhihi karaa truss marka trusska isagana keliya wuxuu qaadaa axial forces ama way ha ahaadaan direction amaba x direction marka halkan wuxuu ku leeyahay loading causes bending of the truss which develops compression in the top members tension in the bottom members macnaha wuxuu ku leeyahay haddii hadda meeshan oo kaleeto force b iyo force haddii kuwaanay kaba soo qaad inay yihiin forces amaba culaysyo ka jiita ka laalaado trusskan marka wuxuu ku leeyahay hoostanayt waxay noqonaysaa tension korna waxay noqonaysaa compression tension iyo compressionna inaad taqaano aan rajeynaya aanu imaano typeka labaad maadadan lagu sharxo waxaa weeyaan frameska waxaa ku leeyahay frame members are subjected to axial shear iyo moment frameka waxay leeyihiin tusaale ahaan usoo qaadanaba kuwaan hadda kan waxaan haysanaa anaga meeshan waxaan haysanaa frame amaba eraser waxba eraser doonamayna haddii aan hadda fiirino framekan oo kaleeto halkan wuxuu ka yahay rigid macnaheeda waa fixed marka wuxuu qaadanayaa maxay sida beamka oo kaleeto wuxuu qaadanayaa axial force in the y direction in the x direction iyo waliba moment laakiin hadduu bin yahay wuxuu qaadanayaa xukunkii binka oo ahaa force in the x direction iyo force in the y direction force oo ah dhinaca y-da iyo force oo ah dhinaca x-ta ayuu binkana qaadanaya sidoo kale halkan haddaad hadda ka goyno oo kaleeto ayada waa rigid halkan waa bin marka tan wuxuu qaadanaya xukunka kan iyo kan waa isku mid kan iyo kanna waxay noqonayaan isku mid darsigeenana hordhaca aana maanta intaasuu ku egyahay waxaan isku dayaynaa markaan sharxayna maadada inaan inta badan example ama problems intaan soo qaadan inaan xalino sababtoo ah waxaan isleeyahay problemska ayaa lagu fahmi karaa amaba fiican in lagu sharxo sharxaad ugu fiican oo darsi laga bixin kara inuu problemka yahan jeclahay aniga kulli saasaan aniga wax ku fahmi jiray marka saasaana ayaan kusoo gudbin doonaa casharadannada keliya casharka soo socda oo loadiska ka hadlaayo ayaan sharxi doonaa loadiska iyo qaabka uu uga gudbo maxaa la dhahaa meesha ugu sarreysa haddaan guri ahaan tusaale ahaan usoo qaadan oo kale meesha ugu sarreysa ilaa meesha ugu hooseyso aasaas guriga ah siduu loadiska u kala gudbayo ayaan sharxi doonaa kadibna waxaan ka bixin doonaa example darsiga soo socda marka nala socda aad baad mahadsantahay